daawade haddii aad ku cusub tahay channelka Ilays News fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada xaqiiqada ku saleysan ee aanu sida joogtada halkan idinku la wadaagayno golaha wakiilada Somaliland ayaa waxay cod aqlabiyad leh ay ku meelmariyeen labadii xubnood ee komishinka doorashooyinka Somaliland u matalayay xisbiyada mucaaridka ee u cid iyo wadani fadhi aan caadi ahayn way saaka iskugu yimaadeen mudanayaasha golaha wakiiladu ayaa ay ku ansixiyeen labadan xubnood waxaana ay codeentu u dhacday sidan sida waqti waxaan saaka u falansannahay laba xubnood oo ka dhigna komishinkii hore oo goluhu diiday xisbiyadu dib soo celiyeen waxa labada mudane lagu diiday maxamuud saciid dalmar goluhu markii hore wuxuu ku diiday golaha ugu yaray dalbeelka uu soo qaybgeliyay cabdifataax ibraahim xasan goluhu maanta wuxuu ku celiyey waxaa la yidhi waxaa komishanka iyo guddi technical committee ayaad ku wada jirtaan risaykale labada mid xusbiyadu dib bay u soo celiyeen labadii xubnood ee hore ay soo celiyeen waxaanu sharti kaga dhignay cabdifataax inuu keeno inuusan ka mid ahayn technical committeegii la sheegay inkastoo innaga aynaan arag waxa xusbiyadu ku heshiiyeen walaaquu soo qoray inuu ka tanaasulo technical committeegii hore cabdifataaxna golaha wuxuu soo qoray waxaan leeyahay ninka dalmar isaguna walaaquu soo qoray apology uu golaha weydiisanayo apology weydiisanayo xafiiska madaxweynaha ku gudoomiyaha golaha wakiilada ogeysiin gudoomiyaha xisbiga wicid ogeysiin gudoomiyaha xisbiga wadani ujeedda soo gudbin xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka ee xisbiyada wadani iyo wicid mudane gudoomiye waxaan halkan ku soo gudbinayaa xubnaha xisbiyada wadani iyo wicid u soo xuleen inay ka mid noqdaan komishinka doorashooyinka qaranka ee cusub oo buuxiyey shuruudihii xubinimada komishinka doorashooyinka qaranka ee ku xusan qodobka 13aad xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer lambar 2201 sida ku cad qodobka 12 farqadiisa labaad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer lambar 22001 labada xisbi qaran ee wadana iyo wicid waxay u soo xulayaan xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka waxay u soo xuleen kow maxamuud saciid dalmar oo u soo xushay xisbiga wadani laba cabdifataax ibraahim xasan oo u soo xulay xisbiga wicid mudane gudoomiye waxaan rajaynayaa inaad ku gudan doontaan waajibaadkiina dastuuriga ah kuwaasoo aan horay idinku soo gudbinay qoraalada muhiimka ah iyo ansixintooda allah mahadle mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan warqaddii raaligelinta ee maxamuud saciid dalmar baynu idan akhriyaynaa ku gudoomiyaha golaha wakiilada ku dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada ujeedda raaligelin anigoo ah maxamuud saciid dalmar xubintii xisbiga wadani u soo magacaabay guddiga doorashooyinka qaranka waxaan goloweynaha ka raaligelinayaa inaan iman fadhigii lagu ansixinayay xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka ee qabsoomay 12 Novembar 2019 iga guddoona salaam diiran iyo raaligelin buuxda allah mahadle mudane maxamuud saciid dalmar cabdifataaxna warqadiisi waatan ku gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan anigoo ah cabdifataax ibraahim xasan waxaan halkan ku caddaynayaa inaanan ka mid ahayn guddi kale oo doorasho oo aan ahayn guddiga doorashooyinka qaranka isla markaana aanan ka howlgelin waxaan garowsanahay shuruucda iyo ahmiyadda ay leedahay dhowritaanka shuruucda doorashooyinka qaranka allah mahadle cabdifataax ibraahim xasan inla ansixiyo baan xildhibaanada weydiisanaynaa tirada hala sugo gudoomiye sug ma joogo ma jiro no gudoomiye sug no ma dhacayso golaha waxaad weydiisaa ma labadana loo codaynayaa mise labada soo bedelo laga soo bedelo xildhibaanada ra'yiyo doodna sii gudoomiye waa markii labaad jooji doodi ma jirto cod baa la gelayaa haddaadan raalli ka ahay waad baxaysaa bax
كبح كلها كبح xildhibaanada jooji cabdisaaq aamus baan ku yidhi war aamus baan ku yidhi aamus xildhibaanada ogol in loo codeeyo cabdifataax ibraahim xasan gacanta ha taageen cabdifataax ibraahim xasan waxaa u codeeyay 49 xildhibaan cidima diidin 3 xildhibaan waa aamustay guddoomiyuhu muu codayn cabdifataax ibraahim xasan waxa saasuu ku yahay commissioner xildhibaanada ogol in la ansixiyo maxamuud siciid sheekh dalmar gacanta ha taageen محمود سعيد شيخ دلمر كوبيا كنت الحلبان باسحيي عيدما ديدين هل حلبان با مسي غدوميهم مو عودين سداسو انصح كو يahay عبد الرحيم مولى اسماعيل شبكة دورة كيليس نيوز مقالة هرقيزة